السلام عليكم warbaahinta iyo ku ciyaaridda cuquusha dadka Joseph Goebbels wuxuu ahaa wasiirkii warbaahinta iyo propagandada Adolf Hitler waana aabaha warbaahinta propagandada faafiso wuxuu yiri kelmad taariikhda gashay oo ah been sheeg ilaa ay ka rumeeyaan ku celcelinta warbeen ah ugu yaraan 5 mar maalintii wuxuu keenayaa in ay dadku rumeeyaan xitaa ayagoo og in uu run ahayn in uu yahay war la abuuray bani aadamku laba qaab ayuu u fikiraa qaab adag iyo qaab fudud qaabka adag waa midka aad adeegsanayso markaad xisaabaad ka shaqaynayso tusaale ahaan si dhab ahna u fikirayso waana qaabka keenaya in aad daasho in uu qofku daal dareemo tusaale ahaan dadku way daawan karaan 3 saacadood oo xiriir ah aflaam majaajilo qosol ciyaar 90 daqiiqo soconayso laakiin uma dulqaadan karaan 30 daqiiqo ah muuqaal waxbarasho ah dadku way daali qaabka fudud haddaan u imaano waa midka aad adeegsanayso marka TV hor fadhido in aadan bixinaynin dadaal dheeraad ah si aad u fahanto waxa uu TV-gu ku leeyahay taasoo ah in ay sahal ku galaan waxa uu rabo in uu wariyaas ama TV-gaas ku gaarsiiyo waxaadna ogaataa waxa uu TV-gu ku soo gudbinayo in uu yahay waxa uu rabo asaga in uu ku tuso adduunka waxa ka dhaca dhacdooyin badan maalin walba laakiin warbaahinta kala duwan waxay soo gudbisaa waxa ay ayagu daneynayaan kamana tarjumayo waxaas in ay yihiin muhiim iyo in kale taasoo ah in warbaahintu xadidayso waxa aad daawanayso tusaale ahaan 5 dhacdo haddii ay dhacaan warbaahintu kii ay u arkaan in uu maslaxadooda la socdo ayay soo gudbiyaan adigoo u malaynayo in uu yahay qodobka ugu muhiimsan dhacdooyinka adduunka warbaahintu waxay samaysaa eray bixin ay ayagu rabaan la jaan qaadayana ujeedkooda maalin dhow yar aan saaxiibanahay ayaa Facebook ku soo qoray waxaan u safrayaa jigjigo deegaanka Soomaalida Itoobiya waa kelmadda uu adeegsaday waxaan isweydiiyay ereygan uu wiilku adeegsaday xaguu ka imaaday ma mid si qaanuuni ahaan ah loo diiwaan geliyaa oo la isku raacay mise waa mid uu warbaahinta ka maqlay markaan ku baraarujiyeyna asagii ayaa la yaabay qaladka uu ku dhacay kadibna ka noqday waxaa dhab ah in kelmaddaas qaladka ah uu maqlaayay 100 mar uu warbaahinta ka maqlaayay heer uu u maleeyay xaqiiqo dhab ah ama maskaxdiisa ku daabacantay in uu yahay magac sugan waana dhinaca madow ee warbaahinta Soomaalida halkan aniga niyad xumo kuma tilmaamayo laakiin runtii in ay adeegsadaan waa arin cajiib ah inay adeegsadaan ereygaas deegaanka Soomaalida Itoobiya warbaahinta ummadaha kala duwan qadiyadaha xasaasiga arrimaha xasaasiga sida dhulka iyo jiritaanka ummad way ka fiirsadaan ereyga ay adeegsanayaan sababtoo ah ereygan saameyn ayuu ku yeelanayaa cuquusha jiilka soo kori doono jiilasha imaan doono markuu jiil walba jiil u sii gudbiyo ereyga deegaanka Soomaalida Itoobiya waa erey bixin halis ah deegaanka Soomaalida Itoobiya waa erey bixin qaldan 100% dhul xitaa aanan weli wax wada hadal laga yeelanin masiirkiisana la xadidin afti laga qaadin xitaa laga wada fariisanin in si 100% loogu saxiixay Itoobiya mas'uuliyadan waa inay dusha u ritaan warbaahinta Soomaalida kala duwan waa in mas'uuliyadda ay xambaaraan muuqaalkan wuxuu daliil u yahay waxa aan sheegayo waan soo laaban doonaa waxa madasha kulamada ee kaali uga furmay heerarka kala duwan ee hogaaminta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya xuska 24 jirsadee 20 Gimbood si meeqaam sare loogu xusay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweyne ku xigeenada golaha dhexe ee xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa markii ugu horeysay yeelanaya warbaahinta maanta qofkii ay rabaan ayay ka dhigaan haliyay dhacdadii ay doonaan martida ay soo fariisinayaan waa arrimo la xulay arrinku wuxuu u egyahay qof qol ku xiran kadibna daaqad yar loo furay lagana tusay wixii la rabo laguna yiri caalamka daaqadan kaliya ayaad kala socon kartaa daaqadan kaliya ayaad ka arki kartaa
مالكولم أكس الحاج مالك شباس ayaa yiri sanadyo badan ka hor haddaad warbaahinta caqligaada siiso waxay kaa dhigay in aad la safato daalimka lidna ku noqoto kan dulman waana nooc ka mid ah qaabka aflaamta lagu matalo dadka aflaamta samaynayo qaabka ay isticmaalaan in la sameeyo nin geesi ah sida Rambo wata hub halis ah wixii ka hor imaada cagta marinayo sameeyaasha aflaamta waxay xoogga saaraan muujinta atooraha jilaaga ee wax laynayo heer uu qofka filimka daawanayo la safto caatifo ahaan Rambo iyo ninkaas wax dilayo ninkaas tuulooyinka gubayo wax laynayo inuu qofkan caatifo ahaan la safto oo haddii ay wax ku dhacaan oo kale uu ka murugoodo waxa lagu muujin in uu yahay dhinaca saxda ah dhinaca khayrka la dagaalamayana dhinaca sharta ah inta aadan hor fariisanin warbaahinta saddexdan qodob niyadda sii gasho adigoo saddexdan qodob ay maskaxdaada ku jiraan waa inaad fiirsanayso warbaahinta kala duwan qodobka koobaad warbaahintu waa hawl ganacsi dhammaan kumanaankaas TV ee caalamka wax baahinayo ma jira mid loo furay faafinta xorriyad iyo u faa'iideynta dadka bani'aadamka ma jira TV samafal loo furay waxaa loo furay ujeed ganacsi iyo ujeedooyin kala duwan noocay ahaadaanba ma jiro aalad warbaahin aanan lahayn ujeed qodobka labaad ma jiro warbaahin dhexdhexaad ah haddaad raadinayso warbaahin dhexdhexaad ah oo aanan dhinacna u janjeerin gurigaada ha soo dhaafin sababtoo ah ma helaysid hana isku dayin helinta warbaahin dhexdhexaad ah aalad kastoo warbaahin waxay leedahay ujeed loo unkay qodobka niyadda gasho aljazeera dhexdhexaad ahayn CNN baan dhexdhexaad ahayn BBC baan dhexdhexaad ahayn kanaalada Soomaalidana dhexdhexaad ahayn idaacadaha aalad kasta waxaa loo furtay ujeed gooni ah markaad daawanayso inaad qodobkan ogtahay taas waxay kaa saacidaysaa in aad ogaan karto waxaad daawanayso waxay yihiin in aad kala meeri karto ee aadan si 100% u qaadanin warbaahintu waxa ay sheegayso qodobka saddexaad maalgeliyaha aaladahaas warbaahin ma danaynayo waxa ku anfacayo wuxuu danaynayaa saacadaha ugu badan ee aad hor fadhin karto aaladiisa warbaahin taasoo ah in uu maskaxdiisa majuujinayo si uu u helo wax ku soo jiidanayo ma aha wax ku anfacayo waa wax lahwi ah oo kaa dhigayo in aad hor fadhido TV-giisa in aad waqtiga ugu badan ku bixiso waxa ugu muhiimsan asaga waa waqtigaada iyo intibaahaada soo jeedkaada in uu ku soo jiito warbaahinta maanta waxay soo saartaa jeel lugaha madaxa uga yaalaan madaxana lugaha uga yaalaan jeel aanan aqoonin waxa uu yahay iyo meesha uu u socdo jeel cid kale hoggaanka u hayso jeel aanan laga sugaynin in ay ummad wax u faa'iideeyaan in ay ummad fikir ku soo kordhiyaan waana mas'uuliyad nasaaran dhammaanteen in aan ognahay waxa aan fiirsanayno iyo jiilka naga yar carruurteenna waxa ay daawanayaan waxa ay fiirsanayaan ama aan annaga gacanta ku hayno goorta aan iska xirayno iska joojinayno waxa aan daawanayno aan leenahay wacyi guud in aanan u qaadanin xaqiiqo sugan waxa ay warbaahintu faafinayso in qodob ama war ama dhacdo ama faaqidaad markaad aalad warbaahin ka maqasho aadan u qaadanin xaqiiqo sugan 100% ah in aad kala meeri karto waxaan waxa ay yihiin موضوعنا ما انت انا يكوغي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته